magacaygu waa Samsom Maxamuud Faarax waxaana ka mid ahay gabdhaha loo diyaarinayo orodka Olimbikada ee lagu qabanay magaalada London dhulkaygiyo kiilaygu dhalayo ku dhaqaaq waxaan ciyaari jiray asalkayga hore basketka mustaqbalka heerka xamar ee yaani asaas uma sii weyna waayo waxa ka sii weyn maxaa la yiraahdaa xiriirka ciyaaraha fudud atletic لكن أنتم حسيها حسن كله آدي آد يا وقصي نحني محايلي قدوميها أولمبيكا الصومالية حاجة إذن ورويش وحو أهانين إسبورتس آدي آد وجعلن إسبورتس خرمركز geeriyooday aabihii isboortiga Soomaaliyeed halyeeyay isboortiga Soomaaliyeed Allah u naxariistay aadan xaajiye baroowish iyo waliba gudoomiyihii kubadda cagta Saciid Mugambe Allah u naxariistay run ahaantii waxa halka ka baxay madax aad u sarsare Olympians usually train their whole lives to qualify for the Games, but some don't have that luxury. Somalia is sending 2 athletes this year, despite its devastating 20-year civil war. As CCTV correspondent Emily Drew reports, the country's small delegation has only had a few months to prepare. Can you take this, Mr. Kobe, and take this other guy? I say that my country is a good country, and no, I don't feel. I mean, that my country is a destroyed country. Now Somalia is alive. It's staying. They are defending their flag and their homeland and their people. kala hadii training lagu sameeyo waa dad mustaqbal waan noqonaynaa laakiin way adag tahay sameynta Muqdisho training lagu sameeyo iyo website-yadii wixii qoray in ay soo deeyeen in ciyaartoydii Soomaaliya qaranka ay isdhiibeen ee qaxooti magali weydiisteen waddanka Ingiriiska taas ayaan beeninaynaa shacabka reer Soomaaliya meel kasta jooga adduunka waxaan u sheegaynaa in ay ciyaartoydii aysan isdhiibin do bad thing to them or to their family. You understand? You're not feeling nothing, but like you didn't do anything wrong. You didn't know them. They never seen you before. It's really hard. It's painful.